hooyo gaasira ducaale shira waxay muddo 50 sannadood ah la taagdarayda farqof oo dhashay oo alla xuskeedii ka qaaday mid kamid ah halka saddexda kalena ay dhaqaatiirtu u sheegeen inaanay koriinba samaynin maskaxdoodu hase yeeshee hooyadan ayaa waqtiyadii hore waxaa la hayn jiray aabbaha dhalay oo alla oofsaday haddana ay hooyadani ku dhowdahay howlgab qadarka alle waa mid wada haleela addoomaha alle hase ahaatee xaaladda ay hooyadani ku sugan tahay oo nagu noqotay mid argagax gelisay dariska qoyskani ayaa waxay noqotay mid laga filan waayey in loo soo bandhigo addoomaha alle si ay wax ula qabtaan hooyadani muddada dheer la dhibanayd intaa dadku weydinka arkaya dushii weydinka ka arkaya deedooduna waa sida wadaadku idin sheegay ilaa intaaba inaan sida ula soo rafaadaynay ay dadka buka ahaayeen adduunyana deynariyaan markii hore miigaasan joogin ariyo dadinta ariyahayna waa baxday awoodna weydinka ka arkaya qaabkaan la soo maray waxay yihiin ilmaha ugu weyni 3 bilood markuu jiray baa qaaq laga siiyay ilaa inta waan la baabaayo inta haday wadaatahay haday dhakhtar tahay saddexdu isku mid bay ahaayeen mid walba waxaan dhakhtar in wadaado meel walba waa la soo maray intii makaabooda intay faraha baan ka qaadno waan iska dhigay ka bacdi inantan waa ila waday waa yara xanuunsatay oo maskaxda noqotay oo dadkay joogto la kala gadiyaa taa imkana 7 sanadood baan iyadana la silcayo iyaga iskaba dhigay iyaga iskaba dhigo iyada la silcay imka waa tan bishii soonfureed iyay cagaar u ka dhigto oo ka saar baan ku hay kuwana weydinka arkayo waa ku aankaas ummadda ilaahay ee rasuulka iyo muslimiinta iyada inay caawiyaan baan ka codsanaynaa geesta kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay Suldaan Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad iyo Suldaan Sayid oo daraale ugu kacay sidii ay qoyskan ula maareen lahaayeen dhibkaasi haleelay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka waa 3 nin iyo 2 hablood walaal iyo hooyo aabba 7 qof bay ahaayeen aabbi wuu dhintay hooyadii waa tan hablihii mid waa tan inana way maqan tahay oo xagga miyiga ay ku maqan tahay oo taala ilaahay amarkiisa labadii hablood way caafimaad qaban xanuun muxuu ahaa xanuunada iska caadiga mooyaane iyagu muxuu ahaa caafimaad qab ayay muxuu ahaa ku dhasheen saddexda wiil xanuunka aragtaan ayay ku dhasheen mid waliba marka uu yar yahay uu murjaca yar yahay waa qof caadi weey halkii maskaxdu kori lahayd qofku maskaxdu kori lahayd ayaa amarka ilaahay aan korin waxaanu joognaa guri kamida magaalada Burco guriga waxa degan dadka adkaysaan waa qoys ka kooban 6 qof inan miyay ku maqan mooyaane 5 qof kale waa kuwaas dadkaasi duruufo adag sida islaamta iyo suldaanku ay Suldaan Sayid ay ka warbixiyeen ayay ku nool yihiin wiilashu oo koob iyo konton jir iyo 40 jir daadoodu gujir iyo 2 jir iyo wixii la mid ah weeyaan inanta lafteedu waa xagga iyadu maskaxdeedu ma aha dadka noocaas laakiin iyada lafteedu hadda waa xanuunsanaysaa waa dad danyara oo duruufaysan oo aad aragtaan duruufta ay ku nool yihiin mid caafimaad mid dhaqaale yaani waxa weeyaan aad iyo aad bay u liidataa waa dadkii markii hore miyiga ku noolaa xoolihii ka baxeen ninkii odayga u ahaa ee mas'uulka ahaa gacanta ku haya uu dhintay halkaas maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku ogyahay waxaa noogu soo qayliyay dad qaraabo ah iyo jiiraankii oo yiri dad baa halkan maaragtay ku duruufaysan oo ku dhibaataysan walaalayaal ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed iyo meel kasta ay joogaanba anoo ka bilaabanaa xukuumadda Soomaaliland ummadan mas'uuliyadu ay ka saaran tahay iyo ummadda islaamka dhamaantood waxaan u soo jeedinaynaa in la soo caawiyo dadkaas insha Allah ta'ala waxaanu idinka codsanaynaa wallahu fi aawni al-abd ma kana al-abd
fii cawni akhiih ilaahay subxaana wa tacaala qofka dantiisa ayuu hagaajinayaa oo ku jiraa inta qofku danta walaalkii uu ku jiro waxa weeyaan iyadoo dadkeennii qaarkood ay sidaa yihiin oo duruufaha noocaasa ay ku nool yihiin inaynu innaguna saddexda wakhtiba iyo waxa weeye wakhtiyo kaleba raashimo kala noocnooc ah oo aynu ku daacaaqurunnay aynu markaa cunno xaaraan bay noqonaysaa xaaraan ayay naga noqonaysaa dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheregtu xaaraan ha la soo caawiyo walaalayaal dadka waa qayladhaan weeyaan waa imtixaan weeyaan ilaahay maskax uma waayin ilaahay caafimaad uma waayin ilaahay xoolo uma waayine innagaa laynagu eegayaa maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badda cas 24 t v burco